أنا غير سوماليد عدو إنه يهي مؤقلي ما نربو عدونا اسمنيهم isku diin baanu nahay isku diir baanu nahay isku dal baanu nahay isku dhalashaanu nahay marka dad jaahiliina baa soo baxay oo social media saa wax u daadinaya een hadda tagtid qolalka waxa lagaga hadlayana waad yaabaysaa sida giftiyada loo bixinayo sida wax loo daadinayo sida lacag loo burburinayo waxaas waxa lagu sameeynayaa qaarna way shaqaysanayaan oo shaqay ka tahay nimco nimca jaweeriya soo dhawow habo wa alaykum salaam dadka qaar halkaasay ka tahay qabiilkani oo ku shaqaysanayaan hunguri baa u geeyay qabiiladan ay ka hadlayaan inta maxasta ah ee wax magaratada ah ee masaakiinta ah iyo intaan hore wax u fahmin waa lagu burburinayaa caruurta yaryar marka qalbigooda lagu qafilo waxaas oo qabyaalada iyo waxaas oo quruna oo la yiraahdo wiil Soomaali oo walaalkii iska ilaali goormuu talaabsanaya wiilkayo goormuu asaaga dhinac ka raacaya goormuu wiilashan diyaaradaha kicinaya sameynaya dunida farta ugu walaaqay ee sayniska noo adeegsaday goormuu iska celinaya soo asaagen kamaynu harayno qadarkeena kuma jabayno waa qadarkaaga ku jab wallahi qadarkaaga ku jab weeye salaan mudan kuween sayna salaan la mid hooyo macaan thank you soo dhawaw flowers ka cusub goormaynu tahan gaarina hadaynu inagu uniseegno hadan 9 kaba halkan intiina igu jirtaan dhaha reer hebel baatiin saasatiin ana reer hebel baan ahay libaaxan san ka tabta oo adiga ku soo jeedo goormaan qayrkay raacaya wadan qaniyaynu haysanaa oo barwaaqa soorana halkaynu ku dhalinteena ku dhiiri gelin lahayn war dhirta beera war maxay sameeyay waxaan halka ku beertay toon baan beertay samarkii baan noo imanaya waxa idin tusaya qudrada suuqa aan ka soo gadanayo dhan anoo guriga intaan ku beertay 5 dabaq dushoodan saarana 4 dabaq dushoodan saarana waxa idin tusaya 3 bilood ee lagu jiro samarka anigu halka qudrada ku wada beertay tamaandadii iyo baradhadii iyo tamaandadii iyo basashi iyo qachigii iyo baradhada meelan ku beero uma haysto anoo ku beertay baa idin tusaya iniga oo dhul ilaahay ina siiyay oo dhul ballaaran haysanana waynu gaajoonayna xabada tamaandhada ee Itoobiya laga keenayno sugnaa iyo xabada baradhada ee Itoobiya laga keeno waxa la yiri reer hebel iska celi ma taalo sidaynu gaajada uga baxnaa bulshadeena Soomaaliyeed gaajada ina haysa sidaynu uga baxnaa because Kenya iyo Itoobiya ina kala goostay shilinkeenu Kenya iyo Itoobiya gala wuxuuna ku galaa qudrad iyo qaad iyo Arab iyo China iyo Hindiya wadamo inaga wax soo saar badan ayuu shilinkeenu galaa wuxuu ku galaa waxaynu halka marinayno waa saliid waa daqiiq waa qurun oo dhan qabiil ba ina la haray oo halka ugu dambaysan nolosha ina dhigay markaasaynu waxaynu nahay sabool ku dhexnool dhul qaniya ku dhexnool baynu nahay sabool dhul qaniya ku dhexnool baynu nahay oo jahliyada biya dhigtay oo farta la isugu fiiqayo walaalka iska ilaali walaalka iska ilaali qof gacanta loogu fiiqayo waa isku mashquulsan yihiin 500 oo sano iyo intaas oo qarni ka hor odayaal dhintay oo lafahoodiiba burbureen oo ciid cuntay gabayadii ay tirinayeen jahliyad darteed bameshan la yimid oo baacda lagu wada haya taatanko iri saasanko iri malaasif aad baan uga xumahay saacadan maanta la joogo halkaad ku fikiri lahaydeen sidaad wax u qabsan lahaydeen inay idin ka daarnaato cajilada qabyaalada iyo jaahilnimada ina wax barateen baan moodayay oo intii laga soo gudbay intii jahliyada in laga soo gudbay oo wax barateen baan moodayay wallahi billahi inaad wax barateen ayaan moodayay oo meel idin xanuunayso war anoo naaga xanuunsada markaan arko qudaar laga keenayo Itoobiya oo dhulkayga lagu dhaxgadayo Kenya oo dhulkayga lagu dhaxgadayo Masar oo dhulkayga lagu dhaxgadayo dhulkay degan yihiin ma ogtahin dadkaas Kenya badaha aad haysataan hadday Itoobiya haysan lahayd badaha aad haysataan nolol noocee bay ku noolaan lahaayeen buurahaad aragteen dhakadooda ba intay qaad iyo beero idinka beereen buurahaad aragteen dhakadooda intay beero idinka beerteen ayay idinka idin iib keenaan ma ku xisaabtantaan waxa dakhli ka baxa dhulkeena ama Soomaaliya noqoto ama Somaliland noqoto faraha dhaqdhaqaajiya please faraha dhaqdhaqaajiya shaashada garaaca
wax kale ha qabanina shashada garaaca waan ogahay inta badan dadku inayna ka helayn laakiin intiina wax ila garanaysa ama wax ila fahmaysa shashada taataabta ha wallahi waa barteen sida la isu xaasido sida la isu fiirsado uunba waxa la yiri walaala isnicib baa la yiri wayna xoola yareeyaan wayna xabaala badiyaan waa Soomaalida waxa haysta walaala isnicabi way xoola yareeyaan baa la yiri wayna xabaala badiyaan walaala isnicib wayna xoola yareeyaan wayna xabaala badiyaan Soomaali waxa haysta weeyaan dhibaatadaas ina haysata inaga isu jeedna inaga iska adag inaga iscayna inaga isu fiirsana halkan saaranahay kala ii soo dhib mudanay baalkaas basasha aan ku beertay toonta aan ku beertay gurigayga dhexdiisa aan ku dhex beeraya inta uunan roob ku iman baan rabaa inaan sii wada beero ki tamandhada aan ku beerayeen haddaan soo gadaya thank you and I love you eega bal waxaan idin tusayaa eega toontaan beertay bal intaas way iga badanta inta aan beertay ma u jeedaan intaas oo bilood bay iga badanta waa cuna waa wada gurta waan jarjartay way ii soo baxday bahalka yar baan haystaa on toontii ku beerta isaga mid leeg baan keensanaya on qaciga ku beerto iyo mid leeg on tamaandhada ku beerto you know hoyo tii xiro no taacadi xiro please way yar tahay soo qaado khaaradda isku jirtaa soo qaado waan ku wada xidhayda gacantee waa is good soo qaado anaa ku sheegay runtii soo qaadad go'aan eegna way isku eegayaan waxaan soo qaadanaya weel yar yar oo inta wada la leeg ha yes la kale hooyo way caadi is okay kan gacantana inta soo ma isuga wax yar baan rabaa inaynu ka wada hadalno walaalayaal oo xaq runta inaynu ka wada hadalno look caadi weeyaan xaba sheegmaysi mobilkaaga waa ka qaalisan xalay jabay bisinka maxaa iga qaldan qof saacad xiri kari waaya baan hay look tawo ma kugu daratana okay halkan ku dhexri iska taadaba waxaan idin sheegayaa that's waxaan idin sheegayaa hadda si beeran kartaa iminka xilliga qabaha weeyaan cadceedaasan yara dhigay marka cadceed soo yara baxdo ayaan shalay cadceed yara dhigay biyaheedii wax walba aan ku shubay way nafaqaysan tahay kaale yar bug bay oranaysaa waxaysa mid la eg baan soo qaadanaya kamsarti baan ku beeranaya mid la eg baan soo qaadanaya qacigii baan ku beeranaya mid xoogaa ka yara weyna yaanyadii intaan kanoo kale ku sii beero 2 iyo 3 ayaan soo gadanaya saxaaradii dheereed oo halka liidka saa u dhigo iyadan ku ridaya gabdhihiina Soomaaliya jooga marka gabdhihiina Soomaaliya jooga naag waliba guri bay ku jirtaa dhul baad helaysaa dhul ma helaya 4 dabaq dushoodan saaranahay waxaan cuni lahaa baan beeranaya dhul waxaad haysataa aan cadceedu ka tagin oo baraf kugu soo degin waxa beeri kartaa babayga oo waxa beeri kartaa batiikh oo waxa beeri kartaa xabxabka oo waxa beeri kartaa wax kasta ayaad gurigaaga dhexdiisa ka beeri kartaa oo waxa beeran kartaa tamaandhadii oon ka gurin oo aan ka gurin qaxoontigi baan deganaa tamaandho lacag ma bixin jirin sanad baan deganaa qaxoontigi shaadeer gurigayga waxaan ka imid kiyaba bayga ka baxayo oo dhirtii la harsanaysa ka baxayo oo nooc waliba ka baxayo baradhadii baan ku beertay oo qacigii baan ku beertay oo babaygii baan ku beertay oo qarihii baan ku beertay everything baan ku beertay markaas yaanyadaydu intay xaafadaha jaarka u dhacdo laamuhu waa oodo saa uga dustay dhinaca kale u baxday ayaa waxa la oran jiray yaasminay ma gurana wixii laan idin timaada idin kaale baan oran jiray gurta dadka ila jaarka gurta baan ku oran jiray ugu tabaruci jiray quruxda waa baan ka heli jiray anigoo baby ayaa waxaan bilaabay gurigayga babay ku beero oo aan midha ka cuno intaan beerka ku siqo koro aan midha ka cuno ilaahay baan ku dhaartay inaan inta jirahay rabbi baan ku dhaartay hooyaday waa noosha maalin baan weydiin doonaa nugaal godan istaagan runaya hooyo ka waran berigan beeri jiray babayga sebi baan ahaa sebi ciyaal baan ahaa maaqan 6 sano 7 sano waxaan jiray dhul intaan saa u faarfaaray baan ku shubay aqligayga isiiyay inagoo haysana marka dhulka saasa oo ninkii geed beerta uu gacantiisa dhunkanayo baahida ka baxayo ayaa waxa la idin soo taagay social media inaad iscaydaan oo reer hebel ku mashquulsanayn reer hebel lagu dirayo
dhulka yare gurigaagu leeyahay seeso wax kaleba ha ku soo galinba social media ana ku sheegaya YouTube samayso beertaada ka sheekeen beertaadaasi maalintay baxdo iyo maalintay hana qaado halka kala soco umada TikTok aan leedahay saa uga soo dubax tirada wata halkan maanta ku shubaya biyaha waxaan sameynaya beritoole waa soo biqishay waa taas ama waxay soo qaaday bakeeri baan ku soo beeray bahasha halka ku jirta bakeeri ilaahay waan ku dhartalka ay saarnaa bakeeri intaan beer saa ugu shubay toontii oo caadi u noolo ruucba saa ugu dhexriday biyihiisaan dusha saa uga yara daadinay iyadu kala daadata way xabad igu kala baxda way xiidadeedii ii samaysay sheedheer ayaaba qudrad kaaga bixi jirtay haa wallah iyo billah sheedheer waa uu magaalo beereed cajiib oo say wax uga baxayaan aadan malayn karin haddana waxaan ka yaabay markaan arkay beeraha Soomaalida ee ku yaala sheedheer laftirkeeda waxaan ku dhalilayaa beerahaas waxa ka baxa arabakhi waxa ka baxa haruur beer dhan oo wax arkaysaa haruur iyo arabakhi kaliya ka baxdo war dhulka badiya dhirtu say wax uga baxdo dhulka beer cajiib ka samaysta waxaad samaysataan maskaxdiina maala yaa akhi maskaxdiina maala arabakhida iyo haruurku waa loo baahan yahay iyo digirta waa loo baahan yahay iyo xabuubta iyo intan yaryar laakiin inaad dhulku waa dhul cajiiba war waxbaa la uruursadaayo waxa la soo gataa meesha mid kale waxa jirta xilliga roobku uu da'o unba wax u baxaan dadka xilliga roobku ka tago waxba uma baxaan because dhulku biyo waa leeyahay laakiin macnaheedu biyaha loo sameeyay lama garanayo dhul lama xidhanayo gidib lama samaynayo biyo xidhan lama samaynayo dawlad caawisana male iyaguna isma caawiyaan wax intay urursadaan matoor yar ma gadanayaan dadkii matoor yar oo biyaha u soo saara oo doog iyo jiilaalba aynan beertaasi baqtiin cirka bay ku xisaabtamayaan maalinta abaar dhacdo hay haato Soomaali waa wada baahan tahay maalinta cirkaasi dii waayo hay haatay ka tahay Soomaali waa wada baahan tahay waa wada dayacan tahay because wadadan biyo xidhan samaysanayn wadadan biyaha sida loo qabsado aanan aqoon biyahan cirka ka yimaada xitaa si loo qabsado ma yaqaanin beertan waxa laga soo guro ninka beerta qodanayo qaad buu cunaya farlaata ka sac taqsiim ba halka ugu jirto sigaar dheer baa u shidan daroogadaas qaadkaas iyo sigaarka maalintii inta kaaga baxa haddaad seef garayn lahayd imise ku noqon lahayd lacaga fikirkaas kuma jiro markaasay dumarkana iminka markay daaleen badankoodu garab qayilaan oo la cunaan because way daaleen rag daroogaysan oo fooraro oo afaraatanka saacaliya daadin oo qudun cunaya oo aan fikirayn qof gaajoonaya darkaysa baahan oo koorin wallahi maanta ma qayilin wuu baahan yahay ma qayilin maanta ku leeyahay waan ku salaamaya hawa macaa waa kaa qaaday qushayma jaad iyo sigaar ayaa kala goostay caaqibo kale male iyo qudrad soo dhoofiyo jaadka Itoobiya laga keena lacag ba loogu gudaa tamaandhada Itoobiya looga keena qaciga ugu yar toontaasa ugu yar guriga ka baxaysa wadamo idinka liita la idinka keena wadamo idinka liita ayaa la idinka keena lacagta waxa idin baaqan lahayd hadday gabadh waliba qaadan lahayd taladan u soo jeedinayo qudradda aad ariga ku karsanaysid guriga ku beero oo iyadoo fresh organic cun maxaa iyadoo fresh organic inaad cuntid ka fiican cun iyadoo fresh oo organic qudradda dherigaaga ku karayo baradho basal tamaandho toon qaci na inta u ka adkow inta laba talaaba kuugu filan oo kaliya laba talaaba ayaa inta kuugu filan laba geedo babayad isku nafaqaysidna ka beera iyo laba xabxaba sida jirka ugu seexo caruurtaada u shiid qarahana u shiid bartiiqa u shiid xabxabka u shiid maalin walba ilmaha waxa cuno qudradii halka ka beero salarkaaga yar kaabashkaaga yar waxyaalahaas maba u baahnaysid wallahi inada wax kale u baahanayn waxa greenka wax laga faa'iidana ma malayn kartid qudradu faa'iidada ay leedahayna ma malayn kartid waxaan dhul shisheeye lagaaga keenayo iyo waxaan qasacadaysan iyo waxaan balanbalay iyo afar geedoo digir saa ugu jeexo ku tuuro
waxaagi oo qurux badan oo ciidda u ciid rogtidood kaale arag ka dhigto xaarka xoolihiina reer waliba 4 riyaad 5 riyaad buu haystaa 5 riyaad 4 riyaad baad haysataa waa ogay reer walba Soomaaliyeed way haystaan intooda badan digadana waad qaadaan oo banaankaad geysaan waxa ay ku maarayn karto ama ay ku qaban karto xaarkaas xooluhu xitaa ma garan kartid qabyaalad baa meeshan lagu la soo fadhiyaa hadda ridan qabyaalad ka sheekayn la 15 kun wad igu daawan lahaydeen laakiin imanka 54 baad igu daawanaysaan qofna ma caayayo qofna ma xagxaganayo because 54 kiinaas waa intii nadiif tahay intii xanuunsanayd ma joogto markay meesha soo galeen hore u carareen intii xanuunsanayd markii qabyaaladii waayana jaahiliinta ahayd way yaaceen ila waa dad xanuunsana sick people وسيك بيبول اللي وركالي مسكحدينا مالا ومرقينا مالا وأدونكو وأفر بريه أديك يو غاتشاكو كوري إلا ما غاتشوني ينتا دوني كنت تساق يو غاتشوني يكا تيجن دوني دي كالي أو حقبو وركالي نولوش هذا كفانسي ناكالي نولوش إنا إندي فانسي فتوضا بيفرين يقانين وإسفولي يقانين وحون بيدل يقانين واكوشوب طبعا عيالو بلا حسابة أو بلا برتيكولا أو بلا وحبر الشعة أو وضع عي أو وضع عقدد أو قاچونا يو ضيعان أو لو دوريو بدلايان انت سون بيقانين داد كان رير هبل عليدا لبدا هرودو كلا دادينايا جفتيدا ودا بخينايا عليدا هرراو كلا دادينايا رير هبل كودايا way wada baqtiyayaan qaar ba beerka u jiifa baahi sanad walba abaartimaado dadka loo dawareynuna abaartana dhulkan aanu joogno ma la yaqaan rooba lama yaqaan haduu yimaadi haduu maqan yahay lama yaqaan because waa ka tashadeen wiilal idinka oo kala ayaa u tashaday dhulkoodii oo reer hebel ka tagay ama American state baa la isu sheegtaa reer Ohio reer maxay baanahay reer maxay waxa loo kala wada baxay Washington baanahay maxay baanahay Ohio Minneapolis baanahay Utah baanahay warmiyad waalantiin ay dhaha war yaaraheen war maxay naga qaldan war maxaa iniga qaldan war idinkoo hal luuqada ku hadla inta qoomiyad wadanka ku nool wada yaabaysa am American state kaasan ka soo jeeda baanu iskuguna wax shaqo iskule iyo wax reer hebel raadiye iyo wax qabiil ku mashquulsan ma jiro rag tashaday oo dayaxa raba inay u guuraan way ragani marka dadka madow la yasoban la yaaba ilaahay xaqiisa ka bahdilantiin oo wada yasantiin wixiinan madoobi uskag baatihiin because waxaaban ogaadayba sida aynu korka uga madownaynan qalbigana uga madownahay saacadayda qalbigaad uga wada egtiin dad qalbiga daamurka abaynuna korka seen uga madownahay baynu qalbigana uga dhinsanayo dad qalbiga uga dhintayeenuna oo qabyaalad iyo xagasho iyo reer Soomaaliyeed la xintan iyo reer kala ku maqnow iyo irra wada baaqatay ajuusiya wada silcayo cayr qaata baayiminkan inta game idin soo dhigteen abihin idinku kala wasay oo baalayd ka rifay oo huha idinka sheekeeyay saatahan ma guurtaan wada jaahil baatiin kiina jaahilkii reer guraaga wasilcaya كرير جوراجي وصل عيا وحول صل عيا حوله هيستا وبلنبليا ورني ولو بنت ميل دورة دكتي إن كوكو فيلن دول سيسو دول كوكا بدنه إنت إن كوكو فيلن سيستد حولها أدراعي سد إسكدا حولها أدراعي سد إسكدا أو بيرت إنت بيرتد أو حولها هل كان كو حريستد أنا هذا يسقره subagooda yusgare hilibkoodana yusgare xanaaneena maxaa loo foofinaya siday ummadda reer miyiga ay u dhaqmaan ee wadamadan joogno reer miyi bay leeyihiin xoolahooduna way xireysan yihiin hooyo fi amaani la adkaarta akhriso okay baba I love you too adkaarta akhriso aad soo ilaali waxa weeyaan dhulkan baraf baa ka daa oo hawsha idinkaga baxaysa xoolaha aniga rajadaydu waxay tahay inaan wadankayga ku soo noqdo waa horaana idinku sheegay magaalada degmaaya ka warama wallahi bana magaalo u degayn markaan imaado oo wadankayga u soo noqdo magaalada degmaayo miiban ka bilaabaya mii baadiyaan raba inaan dego oo intaan xoolahayga meel u samaysto ku xidhaysto oo beera ka samaysto ayaan idin baraya geel iyo ari iyo looba intaan ku dhaqo iyagoon foof tagin oo nan bixin
intaan halkaas sidaa u dhigo aan mishiina keensado mishiina ii shaqeeya aan keensado baan idin tusayaa waxaan ka dhaliyo waxa aan ka dhaliyo iyo lacagtaan ka sameeyaa idin tusayaa iyo shirkadahan ka sameeyo ila aqli milyan waa hadii noloshu ii gaadho oo naftu igu sinto anigu waxaan leeyahay ganayo dhul gaalaad geelaygu kuma dhalo gujisow qurbaha kani waa lagu gaboobaa haddii meeshaan israada halkaasaa nabadi ka jirtaa baan degi doonaa waxba igama gelin aniga haddaad Soomaaliya ku heshiisana ku heshiiya haddaa ku heshiin weedaan ama Afrika meeshii aan isku afgarto ay nabadi ka jirtaan degaya baadiyaheeda magaalana uma baahni waxaan keensanayana matoorada aan keensanayana solar baan wada saaranayaa meel walba biyahana solar ii soo tuura oo beeraha ii waraabsha oo guriga solar ii kala dhaqaajiya xoolahayga xaarkoodana dhulka aan cawska ka soo guro baan ku rushayn doonaa saa ugu rushayn doonaa markaasoo cawsku wuxuu u dhacalayaa dhulku wuxuu u dhalayaa dhemel dhulka aan cawska ka guro xoolaha aan siiyo oo aan kaydka uga dhigto xoolahayga xoolahanay dooga intay daajiyaan aan gunta lahayn aan kaydka lahayn hooga yeebay ee cirka unaysa u wada eegayeen af dheer iyo ka dhaadheer iyagoo meesha noo soo taagan yihiin qabyaalad baa idin guntatay oo idin xidhxidhay kaydiya biyaha cirka idin yimaada kaydiya dooga idin baxa xaarka xoolihiinana ordo oo inta dad iska dhigtaan dhulka ku rushaysta oo u seesta meel gaar ah intay geeduhu kaaga baxaan xoolahaagu ay ku daaqaan dhulkuna wuu qurux badnaanayaa neef dhulka ordayana lama arkayo xoolahaagina waa tiikeer garaynaysaa nolol fiicanna waad ku noolaanaysaa oo qurux badan dadna waad haayir garaysan karaysaa laakiin anigu maba u baahni Soomaali jurujurudiisa leysiya jilicsanaantiisa kombiyuutar ay shaqeeyaan keensanayaan sida caalamka mid xoolaha ii siiya cuntada mid xaarka iiga xaaqa mid caanaha iiga lisa maalin walba waynu baahannahay faqiir inaga kibir badanna ma jiro shilinkeenina wuxuu galay Kenya Nairobi Arab oo ka qanisan oo aad adigu qarniyo ka hor sadaqada siin jirtay baa qashinkooda saliid intay kaaga soo dhigaan caruurtaada siisaa markaasaan kun jeer kugu yiri xuukada geelaaga iyo dhuuxa geelaaga cun subaga xoolahaaga cun ilaahay dhulkan ayuu ku siiyay iska daa bariiska iyo burka lagu soo waaridayo iska daa tamaandhada iyo qajiga iyo toonta lagu soo waaridayo ee shilinkii ka dhameeyay iska daa qaadka daroogada ah ee lagu soo waaridayo intaad qabyaalad caada u haysid oo halkan reer hebel u fadhidid orado naag walayba beero gurigaaga waxaad ku cuni lahayd iyo nin walowba gurigaaga waxaad ku cuni lahayd beero markaas Itoobiya irsaaqadeed go'aysa oo Kenya irsaaqadeed go'aysa oo cid walba qurun ku soo waaridaysay irsaaqadeed go'aysa markii cid ka gadataba la waayo wixii keenay waxaadan beeri karin male wax walba gurigaaga ku dhex beeri kartaa wa alaykum salaam wax walba gurigaaga ku dhex beeri kartaa gurigaaga dhexdiisaadna wax walba ka samaysan kartaa markay gabadh waliba inta beerato intay beerato gurigeeda dhex dhigato oo inta in laego kamsar beerato oo inta in laego tamaandha beerato laba geed ku kala ridato xabadiba geed ku rido kaana geed ku rido ka kalena geed ku rido ay saa isu garab dhigto oo ilaashato raaxa ku noolaanaysaan waxba idin safe garoobaya gaaja ka baxaysaan caanihi xoolihiina fresh baad helaysaan hilibkoodii oo freshna waad cunaysaan mise beemtaan isugu sheekaynaayo qabyaaladeen isugu sheekaynaayo qudhunkaynu ka wada sheekaysanaa ma garan karno saynu wuxuu noqon lahayn ma garan karno laakiin saynu u xintami lahayn oo isu yasi lahayn oo isu bahdilan inagoo yasan inagoo bahdilan oo inagoo dhan yasan inagoo dhan baa yasan wallaahi inagoo dhan yasan baynu isku jeednaa markaas saacadan oo adduunkiina uu rababa inuu meero kale u guuro oo lagaga guuraba kan waa laga sii socdaa wadakan ilaa baan ku dhartay meerahan aan ku dhoolay waa laga sii socdaa adduunka wiilasha indhaha buluug galaa dadkoodii meel ba u sahamiyeen inay guuraan bay rabaan idinkuna waxay dhaafilaadiin daarad baa yiri hawiyaa yiri irir baa yiri isaaq baa yiri doon baad haysaan goorma wax noqonaysaan marka adigoo isku luuqado isku jinsiyado wiil iyo abtigiya adigu isku mashquulsan tahay goorma wax noqonaysaa
jaahiliinta caruurta yareer iyo dadka wax magaratada ah ilaahay umada garaadka uma simin waxa uga sheekaynaya iyagoo cimriga naga waaweyn oo cajuusyo wada ciraystay inta maxasti wax magarataduna ay boqodheed damdheed digdheed ay hayaan وربك يابا وربك بقى dunida waa laga tagayaa adoo reer hebel ku sasayaada dunidan ka tagtid wallahi salka waa hoog ya billahi ya allah salka waa hoog naftaada wax u qabso waxan aad hoostaada ka soo saarisid ha isfuulina nagla idinka sii ha isfuul hadaydan waxba korsan karin oo idan waxba qaban karin baahi kama baxaano ciil kama baxaano waa dawarsanayaan oo waa wada baahan yihiin oo waa wada gaajoonayaan abaar baa dhamaysayo kuwa America joogana ka daran kuwa America joogana waxay sameeyeen sweet girl ayniyay hey government baba u sameeyeen ay lacag ugu ururiyaan 5,000 dad Soomaaliyeed oo dadkoodii baqtiyayo ba islaanta cadaanka 5,000 ugu shubay accountkeeda loo sameeyay waa wada Soomaali hebel waa mid isqariyay waa mid kale isqariyay 5,000 10,000 20,000 waxaa laga yaabaa ehelkiisina gaajo u baqtiyayaan wallahi dad qurux badan baa ku dhalay qushayma waxay tirani hooya binti xamar naga wadeen ayay beer noo sameeyeen nolol natural bay ku siinayaan waxaad gadan kartaa habar ee nolosha ugu quruxda badan baad ka dhigan kartaa gurigaaga wax walba aad samaysan karaa maal internet ka keensan kartaa waan ku uri wax walba aad samaysan karaa wax walba samaysan kartaa gurigaaga wax walba ku noqonaya baabuuraad ku dalxiistaan hawada caafimaadka qabtay maana heli karaa hawadii wadankayga hawada caafimaadka qabtay intaan galabtii qaatan lugayn laha dabagaab intaan xidho ilaa dadna ma joogaan intaan dabagaab xidho ya garan yar baan odayga oran lahayn mare oradne baba gabowneenba ruude ilaa dad qudrad isku daldalayaan naay sida indha yarta 120 sano 130 sano dhalinyarada ah baan noqon lahaa markaas waxaan iga bixi lahaa duubkan naag Soomaali markay 40 gaadhay sidaas isugu dhacdaa waa dad wada sumaysan oo kimika ka buuxido oo jirkooda heltigiisa aqoonin oo dhibaato haysato ilaahay ha inoo gargaaro rabbi ha inoo gargaaro intaynu halkan taagana caaqiba ma lihiin aad baan idin salaamaya waan sii baxaya wax istara oo wax iska dhiga oo kor isu soo qaada salaamu alaykum